Soomaaliya dad dhaqamaa mi soo diraayo waa dhaqamo haye waxaad ka garanaysaa wadankooda iyo meesha maxay yaalo la isweydiinaya baleed maxaa la isweydiinaya meesha yaala balaaya la isweydiinaya hadee noo sheeg waxa la isweydiinaya haye Abdi familigiisa Abdi Wasaaro familigiisa waxay dhaleen Faarax iyo Xaliimo saddex caruur u jooga Faarax iyo Xaliimo ka saddexaad magacii Faarax iyo Xaliimo Yusuf baa la yiraahdaa Soomaaliya dad dhaqamaa mi soo diraayo waa dhaqamo haye waxaad ka garanaysaa wadankooda haye waa ka suu yahay suu yaalo say wadankooda ka yihiin wadankooda laftigiisa laaji ay ku yihiin fiiri hadda magaalada Gaalkacyo dhexdeeda waxa yaala markaan meel fog kaaga raadinay magaalooyinka kale ka raadinaysa ninku gurigiisa markuu ka warramo guri kale ka warrami karaa caadi see weeye inay dhaqamo yihiin markaas sidaas kuugu waabdaa Soomaaliya mid qalbi fiican ma soo xaasidiin maya Soomaalidu waa qalbi fiican yihiin laakiin ayaga xaasid isku ah dhexdooda haye waa ka hal iyo laba ay ku yihiin noo sheeg qabyaalada kow qabyaaladu waa diintooda badee waa ka diin kale ma lahan qabyaaladu weeye diintooda fiiri qabyaalada ku dhaartaan waa ku dhaartaan hadda fiiri gabadhay ninka gubay maxaa hadda lagu haystaa fiiri xamar oo kale markaan ka soo qaadno qabiil baa lagu haystaa waad arkaysa maanta isagoo labisan baa maxkamadda la xageen nin labisan oo saacadu xiranto laamiga la keenay maxkamadda la keenay lagu arkay adduunka dhar baa loo gelay uniforma waaba aroos baan ku yiri aroos bujir marka Soomaaliya hal mas'uul dir Soomaalida maaseedka loo dirayaa waxa weeye inay Ilaahay u noqdaan asalaam ama wax kale oo maaseedka loo diri karaa ma jiro Soomaalida ma diracyaa ma soo dhaqamo mikrofon ku dhigtay Soomaalidu waa dirciyo waa dadka dhan Afrikaanka indhahooda waxa kala sheegay waxa ku cadeynaysa isku dilaya ma qabiil ma aha qabiilka aan arkid laakiin hadii majority bilaadan kala yimaado isku qof baanu noqonaa laba qof ma kala noqono noo qabiil isku dagaalna isku qof noqonaa marka Afrikaanka waxa iska ilo shisha ma nabci wax shisha la yiraahdaa ma jiro hadda waxa cadeys dariska inaan necbtahay ma jiro xalwada waa la isku qabsadaa hadaan wada gaajeysanahay muskila xalwa noo dhigo qof marbu roo inuu cuno saba miyaan wada qaybsanaynaa qof inuu ka boobu raba Soomaalidu waa saa waa dad waa dad ugu fiican adduun maamo dhigaysan su'aasha maqal Soomaalida nacsiyaal miyaa soo dirciyo waa nacsiyaal ana kamid ah ay ku yihiin nacsiyaasha ay dhaqmo ku yihiin deedo kala ku jira Soomaan ma Abdi familigiisa waxay saddex caruura haye Xaliimo iyo Faarax ka saddexaad magacii Naciimo way hadda ka saamay ma sheegay su'aasha ku gacliye Abdi familigiisa waxay dhaleen saddex caruura haye Abdi Qasaaro haye waa Xaliimo iyo Faarax ka saddexaad magacii ayuuto way Soomaalida ma nacsiyaal ba ma fariida ma dirciyaa ma dhaqama Soomaalidu waa dhaqamo Soomaalidu waa dhaqamo boqolkiiba boqol Soomaalidu qabyaaladu ku saleysan tahay sidaa daraadeed marka Soomaalidu waa dhaqamo fariida ma aywa Abdi familigiisa waxay dhaleen saddex caruura Xaliimo iyo Faarax ka saddexaad magacii ku celsuaash Abdi hooyisa abi waxay dhaleen saddex caruura Xaliimo iyo Faarax ka saddexaad magaciisa laga rabaa ka saddexaad saddex wiil bay dhaleen maxaa Faarax ku haystay saddex caruura saddex wiil bay dhaleen ada ogaamiya ما سدح عروض ولا لعب صح كسدحات مغي سدح العروض كسدحات مغي كسدحات هذا شيء مغي هذا ما يعيش الشك مش شيء انا قرم ميدي هاي ميدين يا مسود دقمو Soomaalida waa fariid dhaqamo ma aha ay fariidkiin ay fariidkiin Soomaalida ay ka xasad isku cunaaye oo qabiil ku dagaalaye Soomaali waa isjecesha Soomaali waa isku fariid oo diraca xaasid ma noqda maya xaqal qayr soo dagaalaan haday dirciin waa qaw isku waa diracyaal ay dirciyo ku yiin waa dad dirac maxaa macnihiisu dirac yani Soomaali dad fariidaba mise waa dad nacsiyaala waa dad fariida ya fariidow ay fariidkiin noo shaaliilaw fariid waxa ku yihiin dad wax fircoon weeyda wax qabsada isku tashada maxay qabsada wadanka wakaas musku shaweegay oo dhisay wadanka wax ka qaldan ma saas ku qanacsan sax qanacsan waxa qof dirac ma wax ku qanacaa diracna waa saas lagu sheegay wax ka ma la xasiin soo dad qalbi fiican qalbi wanaagsan qalbi wanaagsan Abdi familigiisa waxay dhaleen saddex caruura naga haysaa
حليمة يا فارح هي عبد فملكيس انت عرورة كسدعاد مقعين عبد فملكيس هي عبد قصار فملكيس واحد لين سدع عرورة صدق عرورة حليمة يا فارح كسدعاد مقعين صدق وعلي اوكي Soomaali waa dirciyo يا walahi Soomaali waa doqomo saac هاي دقمك فيه waxay doqomo ku yihiin haday dirciyihiin dalkooda dhisan lahaayeen هاي hadee dal dhismana maar waana doqomo sax si saxda u jeedaa inay doqomo yihiin وانا عسيال ah وادد فكركود aragtooda gaaban tahay dabcan ha adin doqomaad sida doqon baa Soomaalida kamid ah soo doqon waay irigiiso ay cabdi familkiisa waxa dhaleen saddex caruura abdi ها حليمية فارح حليمية فارح كسدحات مقعي وعبدي Soomaalida dad dirciyaa miyaa mise waa dad qoma ah Soomaalida nacasiim miyaa mise Friido waa Friido iyo Soomaalida Soomaali xun lama sheegin waligeed hadii Friidiin maxay qabil isku dilaan waxa qabil isku dilaan waxa qabilka wax isku laay waxa dad kariibaadiyaha oo xolratada kale qof magaalo jooga nin dhalinyaro ma laga yaabo qof bini aadan inuu isku magaalada ka dar qabyaalade ma isku magaalada mid baadiyaha ka soo galaa markaas marka cala Soomaalida waa dad dirciyaa dad dirciyaa ka okay abdi familkiisa waxay dhaleen saddex caruura حليمة يا فارح كسدحات مقعين حليمة يا فارح ها حليمة فارح عبد سدح عرفت هذا المعيد مركي حليمة فارح بس شيكت والله سقبتي ولا Soomaalida ma dirciyaa mise waa doqomo Soomaalida waa dad aad u caqli badan runtii oo isku gurmada isku diirnaxa Soomaalidu dad la mid ah Afrika iyo adduunka midna kuma noola maxaa qabil isku dilaan qabil isugu dilaan waa carqalad haysto dhibaato oo soo jireena wax waaridiintooda ka dhaxlayna laakiin Soomaalida runtii markii la fiiriyo waa dad xaas wax isugu yihiin waa waxyaalo waxa laga yaabaa in waa dhaqan adigu iska soo jireena laakiin ma wax dabcigooda ama marka Soomaalida abayaashooda ka tirsanaya waa dad Friida wala Soomaalida waa dad isku gurmada dhiig badan oo Friida qof waxa arkaysa adeerkiisa saddexaad xariirinayo adeer afraad adduunka waxa iska shaqeeyo magacaaga noo sheeg magacayga Axmed Liibaan Cali walaalaha ninaasteeduna dhayartu waxay yaqaanaan Liibaan maano day fiirin abdi hooyisi abi waxay dhaleen Xaliima iyo Faarax ayda familkiga inta caruur ay haystaan digu soo celiso su'aashaas abdi hooyisi abi waxay dhaleen saddex caruura Xaliima iyo Faarax سؤال سيداني سؤال شورى يوفي سؤال سيداني يلا waxa uu qaa Soomaalida dad Friida miya dad nacasiya miya doqomo miya dirciye miya Soomaalidu si u badan yihiin horta aniga marka la iga reebo waa doqomo waxa kale waa doqomo aqli waxay doqomo ku yihiin ya macna iyaga soo weydiin aniga fikirkayga ka hadlay moogta waka yani maya Soomaalida kala adigu su'aalaha ku weydiiyay taalantii inaad dad su'aal weydiisid ma taalanta kalma lihid ya barankiyaal baa duuba baranka kadib qof bini aadan ku duubaya adigu baranka sameynaysid ogow ya ilaaweeso ayuto taalantii la imow na waxa nolol imaana neyntii su'aal baan la kor taagan tahay dadka wadada ka qabsanaysa iska daanay muslimka waa dhibtay ya kaamirada luqo ku jirta iyo mustaqbalka maxaa rabtaa inay noqoto mustaqbalka inaad ku dilo naftii waa noo keentay kaamiradan la daba taagan tahay mustaqbalka in dad laayo mustaqbalka gaari mustaqbalka raac Abdul inaa la yaa u noqdaa yo Soomaalidu waa dad aqli fiican oo aqli fiican leh oo aqli garan maxaa ku cadeynaysaa waxa cadeyn dadkan iyo haday qabiilna waa isku garanayaan laakiin mar hadii dagaal galan waa isku meel bay ka wada jeesanayaan isku meel bay ka dagaalamayaan waa dad aqli badan saxlutawa ku garanay wax asniyo aadalay ergaasniyo lan kala meergaana ma wara maxaa ka wada ama afla yaqaan ku hadal ama Soomaali ku hadal ama Ingiriis ku hadal ma taas marna markaan si kaadi ay aadalay ergaas ma lan kala ergaayam jarma waxaan u caaysaa de ma ka nolol ma noolniyo adeer adiga luqadaada wala fahmi way wax dadka laga gadaal rabaa qoy dirciye miyaa mise doqomo Soomaalida ma dirciyaa mise doqomo waa doqomo kan waalaya iska daa wax lama weydiiyo Soomaali waa dirac because dagaalkii saddexaad adduunka anaa ku jiray maalinta adiga maxaa ka mustaqbalka markaa weynaataan maxaa rabtaa inay noqotaan ana waxaan noqon doonaa midka masaajidka ka adima adina waxaan noqonaysaa milyaneer adigana insha Allah goojacda aadi doonaa goojacda mooyada iskala maxaa dhacay goojacda maxaa dhiigayga dhacaankayga meesha ku jira waxaas yaa kugu tarbiyin goojacda dad muslimiin isku laayeen wax muhiim ah muslimiina wariyo charniyo idaaya